ujeedada kulankan ee isku yimaadeen qaar ka tirsan jaaliyadda kasoo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ahaa sidii gurmad dhinaca waliba ah loo gaarsiin lahaa ama loogu fidin lahaa dadkii dhibaatada kasoo gaartay fatahaada webiga Shabeelle oo geystay khasaare iskugu jirtay naf iyo maalba iyo waliba baaq nabadeed oo loogu jeedin lahaa beelihii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan bariga magaalada Jowhar. kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda kasoo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar oo ku nool magaalada London waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda ay ka kooban tahay. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood waxay isku raaceen inay habboon tahay in la joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Jowhar iyo waliba sidii loo caawin lahaa dadkii oo saameeyay fatahaada webiga Shabeelle. gobolku marka iyo dawlad iyo cid walba waa inay arintaas xoog saartaa. arintaas badbaadimayso kaliya Jowhar ama Balcad ama waxay badbaadinaysaa dhammaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ay badbaadinaysaa. laba dhinacba waa ku badbaadin. marna waxay ka badbaadinaysaa fatahaada, marka labaadna waxay ka badbaadinaysaa abaar iyo yacni biyo weyto ka dhacda webiga oo xoolaha iyo beeralayda ay isku dilaan marka webigii biyo ay had iyo jeer lahaanaya. dhibaatada ka timid ee dagaalka xaqiisa walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa in xaalkaas arintaas wax laga qabto xoogana la saaro sida dagaalka loo jooji lahaa. waa dhibsanay aadan u dhibsanay waa qofka dhimanay anagoo naga dhintay reer Jowhar ka dhintay dad kale kama dhiman annaga dareemayna cid kasta ha ahaado qabiilka la isku diraa annaga ma u jeedno waxaan u jeednaa magaca Jowhar qabiil shaqo kuma lehin qofka Jowhar ka dhinto waa ka danqanaynaa. jaaliyadda UK ee gobolka Shabeellaha Dhexe baaq ay soo jeedinaysaa baaqaasoo aan rabno meelaha ay qusayso dhanka dawladda gobolka maamulkiisa xildhibaanada iyo shacabka Soomaali iyo shacabka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe in baaqaas ay ku dhaqmaan oo dadkaas gargaar degdeg in la gaarsiiyo. ugu dambeyntii ayaa kulankaasi waxaa laga soo saaray baaq murtiyeed ay ku heshiiyeen jaaliyadda halkaasi ku kulantay. waxaan u soo jeedinaynaa dawladda Soomaaliya in xil iska saarto dhibaatada baaxadda weyn ee ka dhacday gobolka gurmad degdeg ah u fidiso dadka ku dhibaataysan masiibada ka soo gaartay dagaalka iyo fatahaada webiga. dawladda waa in ay magacaawdo guddi qaran ah oo wax ka qabto dhibaatada halkaas ka dhacday in dadka la gaarsiiyo cunto daawo teendhooyin dooman looga gudbo biyaha iyo gaadiidka dadka looga soo qaado meelaha go'doonka ah in ciidan qaran loo diro dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya Jowhar lana soo qaado dadka ku dhaawacmay dagaaladaas si loogu daaweeyo isbitaalada. waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka waxaa la soo jeedinayaa in uu xil gaar ah iska saaro sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa meesha dhibaatada ka dhacday. shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe in ay u fidiyaan gargaar dadka walaalahooda oo musiibada ku habsatay siday marka horeba ugu gargaareen. baaqan ay soo jeediyeen waxgaradka odayaasha iyo haweenka ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar ayaa waxaa looga fadhiyaa dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato arrimaha ku soo cusboonaaday magaalada Jowhar sida fatahaada webiga oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha dad badan oo halkaasi ku noolaa iyo waliba dagaalada ka soo cusboonaaday bariga magaalada Jowhar. cabdirashiid maxamed nuur cabdirashka Universal TV waqooyiga London.